maamulka iyo bulshada ku nool deegaanka saddex gilo ee gobolka Mudug oo muddooyinkii u dambeeyayba si isku tashi ah ku waday dhismaha masjidkii jaamaca ee deegaankaasi kaas oo ay bulshadu ku cibaadeysan lahaayeen sidoo kalena bulshadu ay uga faa'iideysan lahaayeen barashada culumta diinta islaamka iyo ka wacyigelinta ubadka soo koraya fikradaha qaldan ee lagu suurad xumeynayo diinta islaamka ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhamaystirka qaybaha dhiman maadaama dhismaha masjidku uu marayo heer gabagaba qaar kamid ah culimada iyo waxgaradka deegaanka ayaana ugu horeyn ka warbixiyay waxyaabaha dhiman masjidkii jaamica ahaa oo saddex gilo masaajidkii la dhisayay oo qabyada ahaa masaajidkaas baan joognaa masaajidkii alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa noo dhow yahay waxaan noo haray wax yaroo إسرائيل ربا انتفاعي سوى بنجح حرن بيا مساجد معظم كيسوا على الدسي لكن انتفاعي سوى كحرن يهي إن جون كيلا دجوا مطريل كي يمشي لجوت كان لها جون كيلا دجوا مصليه الله هجاتيو وحي كلو ناشنا شو أوبه يهي لجوت دره انتفاعي سهل كاسو كحرن يهي انتفاعي بنجح دمن وركض أنت أول واحد بهذينا إلهي سبحانه وتعالى وحن لنا هي وحده الله وجه كباره مضاعف الله وقدقه هذيرنا وحو باهي انتفاعيسي إن لا تامي يلو الله فره أيو باهي قفكي أول وحلا بحثنا انتفاعي إذا إنك كسو قيب قش انتفاعيسي لغفر لها وحرق الله قشر لها إنك كسو قيب شو اللو باهي قفكي أول أن لو وحلا بحثنا إنو كدر صلو واللو باهي أساقار أباهن أدون كسي آخر دي ساكو سمانا هيا مركب مساجد كان وحن ليرنا يلو سو قرمدو وحن نقدم مبنى ولا فافاهين دونا وحا كمده متريلكي oo gunka la dhigayay shamiitadiisi waxa kamid ah musqulihii qayb waa dhisnay qaybtii dumarkuna waa dhiman tahay waxa u dhiman masaajidka deydkii maaragtay lagu wareejin lahaa waxyaalaha soo dhan baa dhiman marka insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa intifaaciisa dadka furo oo soo gurmado in khayr laban ilaahay siiyo kuwii hore wax la baxana khayr laban ilaahay siiyo saasan ku ducaynaynaa masaajidka aan u gurmano aan sal qaamno kuwii ilaahay iimaanka uga marxaati kacayaan noqono inma ya'muru masaajid allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir ilaahi u leeyahay masaajida waxa amira man aamana billahi qofkii ilaahi ka rumeeyay baa amira amiridu waxay noqonaysaa dhisida iyo cibaadada lagu amiro intaba amiridu weey marka waxaan rabnaa masaajidka loo soo gurmado inta muxsiniinta oo ilaahay wax siiyay wax badi iyo wax yari midna mare qofkii ilaahay wax siiyay wixii yar oo ku darto mudaaf baa ilaahay uga dhigaya مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة با إلهي يهوي كوا إلهي جدكيس يدبادس وحول بحي oo deeqa ilaahay uu siiyay wax kala baxay waxay la mid yihiin xabad inta meel lagu riday badara oo sabuul geed ka soo baxay oo sabuul bixisay markaas 100 xabba ay ka dhalatay fi kulli sumbalatin 100 sabuul ba ka dhalatay sabuul la arkana waxa ka baxay 100 xabba oo marka intaas oo kun oo laab ya ilaahi subhanahu wa ta'ala la laabahaya qofkii niyo wanaagsan leh oo xoolo xalaal la baxa saasan ilaahay uga rajaynayna ilaahina quraankiisa ku cadeeyay nabiguna noo cadeeyay kaleey salaatu wasalaam marka masaajidka loo soo gudmado baqiyadaas yarta hartay oo intifaaciisu ku xiran yahay ajir gooniyo kaamil ah baleedahay way ajirka kaamilka marka la soo tigsado insha Allah ta'ala wassalaamu alaykum ilaah meeshan waxa isugu nimid culimada ayaa ka hadashay masjidkii jaamica ahaa ee degmada saddex xiglo oo gabagaba si marahaya culimada ayaa wixii khayr ah noo sheegtay inta dhimanna ayada culimada noo sheegtay waxa kaliya oo aan ku adkaynayaa muslimiinta horta intii hore oo ka qayb qaadatay waxaan leeyahay ilaahay ajir weyn ha ka siiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa dambigooda iyo dambiga waalidkood iyo dambiga maaragtay waalidkooda iyo walaalahooda ilaahay inuu ku dhaafo adduunyo aakhiraba ay ku liibaanaan insha Allah inta dhimanna waxaan leenahay hadda waa gabagabadaas waxaan leenahay khayr baad ka helaysaan nala fura nala dhameystira wax yar baa noo dhiman insha Allah ina ku cibaadaysanana naga xiga muslimiinta codsigan waxaan ugu soo jeedinaynaa in ay nagala qayb qaataan meel kasto ee dunyada ka joogan inta khayrka jecel gudoomiyaha deegaanka saddex iglo khalifa warsame maxamed oo isagu kamid ah shakhsiyaadka isku taagay dhismaha masjidkan ayaa ka warbixiyay sababaha keenay in dib loo dhiso masjidkan jaamaca deegaankaasi saddex iglo ku dhawaad 50 sano kadib oo masaajidkii dhismihiisii intii 98% waa noo dhamaaday
waxaa naga dhiman waxyaabo kooban oo aan rabno maanta inaan maaragtay u bandhigno dadka oo khayrka jecel ama deegaanka ka soo jeeda ama aan ka soo jeedino islaamka ah waxyaabahaas oo ka kooban dhowr waxyaabood masaajidka gundhigiisii mutuleelkii iyo maaragtay shamitadiisii oo lagu qiimeeyay lacag 5,000 ah maca gacanta marka lagu daro inuu ku kacayo waa naga dhiman tahay waxa inaga dhiman masquulaha laba qaybood masaajidka ugu tala galnay qayb oo dumarka iyo qayb ragga hadaba dadku maaragtay oo masaajidka aan laga maarmi karin labada qaybood looga maarmi karin qaybtii ragga waa noo dhameystiran tahay mutuleelka waa saarnay biyihii waa la galiyay waa noo dhisan tahay waxay noo dhiman qaybtii dumarka oo waxba laga qaban ayadana waxay ku kacaysaa lacag ilaa 4,000 ilaa 4,500 waa masquulihii iyo dayd loo xiraayo iyo meel maaragtay oo masaajidka service ku xiran oo dhinaca dumarka la rabo in irid gaar loo yeelo waxa asna lacag 5,000 ilaa 4,000 u dhaxaysa ku kacaysaa waxaa jira korontadii masaajidka korontadii fiilooyinkii masaajidka waa la dhigay waa yaaliin kaliya waxaa dhiman qalabkii korontada marwaxadihii iyo laambadihii systemkii samaacadihii wax la xiriir qalab ahaa oo koronto ku shaqeynaysay fiilooyinka masaajidka ku jira wax kale waa dhiman yihiin qiimo waan amaarta rasmi aan ku qiimeeyay ma jiro laakiin waan doonaa insha Allah laakiin qaybtaas way dhiman tahay fiilooyinka masaajidka waa dhignay wax koronto oo qalabkii koronto la hayaana ma jirto waa microphone-kii samaacadihii laambadihii iyo marwaxadihii iyo wixii la xiriira waxa kale oo dhiman masaajidku wuxuu yeelan doonaa banaanka ku yeelan doonaa meel barxada oo dayd aan ahayn laakiin si lagu wareejinayo oo meelaha loo soo marayo oo ilaa laamiga aadaysa oo si lagu wareejinayo iyo mutuleel jajaba si masaajidka socodkiisuna u fiicnaado maarta biyahana looga fogeeyo ayadana way dhiman tahay la'aanteedna masaajidku wuxuu noqonayaa maarta waxa suurto gal in lagu cibaadeysto ayadana ka yaraamayso lacag maarta 4,000 ilaa 3,000 meelahaas galaysa kor qaybta sare masaajidku wuxuu u baahan yahay batuuta waxa la yiraahdo oo masaajidku biyuhu soo deynaya oo waxa galaya shub yar oo jay iyo ciid iyo shamiito la isku laaqay ah waa la qiimeeyay injineer masaajidka dhisay baa qiimeeyay $4,100 baa lagu qiimeeyay lacag marka adigu intaas hadda aan sheegay ayaa ka dhiman waa ka badan kartaa waana ka yaraan kartaa halkaas oo masaajidka aan soo wadnayna lacag ilaa 100,000 iyo dhaadhac ah ayaa gashay 125,120 ilaa 130 u dhaxaysa baa gashay muslimiinta la baxday anagu marka masaajidka bilaabayna $400 baan haysanay haddana 140,000 buu sii haabanaya intaasna dadka bixinay dad masaajidka maarta qof kasto ama muuqaalkiisa arkay ama warkiisa soo gaaray kuwa aanan aqoon oo yiri magacayga ha sheegin baa wax badan weyn la baxay sidaa darteed marka inta hartan waxaan leenahay masaajidkii inta yartaaba naga dhiman waana aad bayna muhiim u tahay meeshii lagu sujuudayay oo mutuleelkii oo maarta qofka musalliga ku istaagay ku sujuudayay baa dhiman iyo laambadii loo ifsanayay ama quraanka lagu akhrisanayay ama lagu cibaadeysanayay marwaxadii qaboojinaysay meeshii loo marayay masquushii dumarka oo ay la'aantood waxba soo roobay meel halahaas dhiman waxaan leenahay marka loo soo degdego Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaal kacay